mar kale isku soo noqod wacan waa maalinimo Sabtiya taariikhdu ku beegan tahay 7 bisha 3 2020 kuna soo dhawaada qodobadii warka oo fidsan aynu ku bilownay cudurka coronavirus oo ku faafaya Mareykanka. Cudurka coronavirus ayaa ku sii faafaya Mareykanka iyada oo Khamiistii laga helay 4 gobol oo hor leh iyo magaalada San Francisco. Tirada dhimashada ayaa sidoo kale gaartay 12 qof iyada oo qofkii ugu dambeeyay uu u dhintay deegaanka King County ee gobolka Washington, halkaasi oo 6 qof ay horey ugu dhinteen. Ugu yaraan 57 kiis oo cusub oo cudurkani ayaa Khamiistii laga xaqiijiyay guud ahaan Mareykanka, waxa uuna faafitaan ka gaaray gobolada Colorado, Maryland, Tennessee iyo Texas iyo magaalada San Francisco. Gobolada Texas iyo Maryland ayaa mid walba waxa uu xaqiijiyay 3 kiis oo la xiriira caabuqa coronavirus, halka Tennessee iyo Colorado laga helay min hal kiis. Tirada guud ee gobolada Mareykanka ee cudurkani la xaqiijiyay ayaa hadda 17 gobol. Dhowr ka mid ah dadka cusub ee cudurkani uu haleelay ayaa lagu waramayaa in xaaladoodu haatan ay tahay mid aad u liidata. 20 kiis oo cusub oo cudurkani coronavirus ayaa laga helay deegaanka King County oo ay ka tirsan tahay magaalada Seattle, taasi oo tirada guud ee halkaasi gaarsiisay 51 qof, halka dhimashaduna ay marayso 11 qof. Si la mid ah dalal badan oo caalamka ah, Mareykanka ayaa wajahaya xaqiiqada cudurkani iyada oo dadka la weydiistay in ay guryahoodu joogaan oo aysan shaqooyinka iman. Iskuulada ayaa la xiray, waxaana sidoo kale la joojiyay isku imaatinka dadka iyada oo la baajiyay dhacdooyinka ciyaaraha. In ka badan 3,200 oo qof ayaa cudurkani ugu dhintay guud ahaan caalamka oo idil. Dhinaca kale, qarax ka dhacay safaaradda Mareykanka ee Tunisia, ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhacay agagaarka safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay magaalada caasimadda ee Tunis, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xiganaysa mid ka mid ah warbaahinada gudaha. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in qofka weerarka fuliyay uu saarnaa mooto. AFP ayaa baahisay sawirada goobta uu weerarka ka dhacay. Wararka ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in uu jiro gurmad ay sameynayaan ciidamada booliiska dalka Tunisia, iyaga oo goobta uu qaraxa ka dhacay ay ciidamada booliiska wadanka Tunisia ay isku geedaameen. Ruushka iyo Turkiga oo heshiis xabad joojin ah gaaray. Ruushka iyo Turkiga ayaa heshiis xabad joojin ah ka gaaray xiisadii ka taagneed gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Heshiiska xabad joojinta oo dhaqangalkiisa uu bilaabanayay saqdi dhexe xalay xilliga dalka Suuriya waxa uu ka dhaqangalay gobolka waqooyi galbeed ee Suuriya ku yaala ee gobolka Idlib ee ay xasarada ka taagneyd. Madaxweynaha Turkiga iyo midka Russia ayaa heshiis xabad joojin ah ka gaaray xiisadii ka taagneed gobolka Idlib, taa oo soo afjarayso dagaal muddo dheer u dhaxeeyay dowladda Turkiga iyo militariga Suuriya. Bishii la soo dhaafay ayay 36 askari oo Turkish ah ay ku dhinteen weerar ay dowladda Suuriya ku soo qaaday, Ruushkana uu gacan ka siiyay. Turkiga waxa uu jawaab xoogani uu weerarkaasi ka bixiyay kadib markii uu beegsaday xarumo badan oo ay ku sugnaayeen militariga wadanka Suuriya. Dhacdadaasi ayaa ka dhalatay cabsi ah in uu dagaal ay ka dhex abuuranto Turkiga iyo Russia, maadaama Russia uu xulufo dhow la ahaa militariga Suuriya. Ugu dambeystii, xubno ka tirsan boqortooyada Sacuudiga oo xabsiga loo taxaabay. Ilaa 3 xubnood oo ka tirsan boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa lagu soo waramayaa in la xiray, waxaana mas'uuliyiinta la xiray ka mid ahaa boqorka Sacuudiga walaalkii, sida ay warisay warbaahinta dalka Mareykanka. Weli lama cadayn sababta rasmiga ah ee loo xiray mas'uuliyiintan. 2 ka mid ah xubnaha la xiray ayaa la sheegay in ay saameyn xoog leh ku leeyihiin boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoona xarigooda lala xiriirinayo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman. Sanadkii 2017 ayay ahayd markii 10 ka mid ah xubnaha ugu cadcad boqortooyada oo ay ku jireen wasiiro iyo waliba ganacsato lagu xiray hotel ku yaala magaalada Riyadh ee caasimadda u ah Saudi Arabia
kadib amar ka soo baxay dhaxal suge Maxamed bin Salmaan